furitaanka oo qura maaha malaa qofkii koobaadee laga rabay inuu jeexo waddada hadalka maanta aynu isugu nimid baa aniga ah madaxweyne sanaanka kadib waxaanu inteeda badan ka soo boqolay sanaag maxaa balasaabkayga iyo maayarkii hawshii hawl badan baa taallay sanaag laakiin taanu u aanbabaxnay kuna jiray waxay hawshii ninka la yidhaahdo Siciid Cawil Caare marka duruufta lagu jiro aan eegnay hawlaha inoo yaalla ee kala eegnay annagu dee kolley waxaa laga yaabaa sida madaxweynuhu wuxuu eegayo si ka sokaysaan u eegayna oo isagu dee tii qaran buu eegayaa anna waxaa laga yaabaa inaanu dee inta badan ku binaysantahay ta qoyska iyaga annagoo ta qaranka baan ka tegay haddana kolley aragtidayadu waxay ku binaysan tahay ta qoyska markaanu eegno dadka maanta jooga laba qaybood baynu nahoo qaybta xumina waa isku wada qolo wixii isla wax hagaajiyana waa isku qolo qarankeenuna maanta jibindaabiyo uma baahnayn waxaa la yidhi nabiyullaahi muuse calayhi salaam ayaa ibliisu yimi markaasuu yihi waxaan doonaya inaan toobad keeno waa adigan ilaahay la hadlee bal inaan toobad keenaan doonayaa ilaahay iisoo weydiin toobadii furanta nabi muuse u tegay ilaahay la hadlay dabeedna waxaa la yidhi waxaad tidhahdaa xabaashii aadam nabiyullaahi aadam tagoo u sujuud nabi muuse isla waad soo guulaysatay intaa yarun ha sameeyo oo waxa lagugu xidhay wax weyn maahee in yar baa lagugu xidhaya intaasuna ha sameeyo ayaa ku soo noqday ibliis wuxuu yidhi waryaha waxa lagu yihi xabaashii sujuud waar kaa iskii baan isku diidnay kaa noloshii ayaa baa la isku diiday waxaan islahay waa soo guulaysatay cafis baanu waxaan islahay cafiskoo qura madaxweynuhu ha idinku dhawaaqo markay dee wax adkaadaan halka la dhaafi waayo ayaa dee talada lagu soo go-aan qaadanaya inta iyada iyo in badan oo kalaanu ka nimi waxaanu codsi ahaan madaxweynaha ula nimi in Caare naloo cafiyo oo ciidanka naloo qarameeyo oo hubka la farsameeyo oo barigtii saa dambe waxaasi naga wada dhamaadaan waxaan is leenahay kelmad qura madaxweynuhu yidhaahdo ayuu waxaasoo dhibi ku xidhan waa qorshahii aanu ku soconay madaxweyne waxba ahaa inaanu dalbarno cafiska annagoo talada halkay dhaafi weydo marnaba aan diidanayn haddana waxaanu leenahay inta iyadan waxaanu ku wada soconnaa iyo in badan oonu wakiil ka ahay in kelmadaasoo qura baa la yidhaahdo halkan gurigan aynu joogno waxaan marayaa waa markii saddexaad shirweyne aanu ku nimaadno madaxweyne waxaan ku xasuusinaya labada goole horeba wanaag waynu ku kala tagnay laakiin wax badan nagama raacin waxaan doonayaa hadalka inaan dul maro une aanan hoosisii marka waxaan rajaynayaa inay maanta noqoto maalintii wax la raacayay intaa markaan ka tego waxaa la yidhi Xijaaj binu Yuusuf ayaa markii uu dhimanayay ilaahay baryey wuxuu yidhi allahuma kfir lii fa ina annaasa yactaqiyuuna fa innaka laa tafcal ilaahay wii dambi dhaaf dadku waxay u malaynayaan inaanad sidaa waxay aaminsan yihiin inaad saa yeelayni dad badan waxay aaminsan yihiin madaxweyne inaanad cafiskaa bixinayne waxaan odhan lahaa cafiskaa bix wixii aan dhaafin ragga kale odhan doona. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaani raxiim